السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سومالي محمد وان إذا وضع سلامي ملبد شوكتان وولاشين إشراق ولي مركالة كسو دوارة شانوكا انت عن موضوع ما تقود قلين وحان روائنا إذا وضع رهو سنة عصب أو وناكسن إن شاء الله تعالى سنة كإلهة نوغدق سنة بركيسن أو بشبشي برواقية عافمات ينمعو يرساقت عن إنا بلسوكو بكرين أو حلال أو بركيسن إنو إلهي نسيو قفل بمرادكيسنا الله وسخره أنت إن شاء الله حنسوق بجبينينا تحنيه رائع كساب صنع شخصي ذا كلا دوان ابن آدمك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يدينكو إيجار لأه كعنت أيام مانتك هيا واي سفر بن هاي وقلبك يجنا ما هيستي وتنكسو هذا لنا ocean وتنكسو هذا لنا ocean وانكسو هذا لنا أو هيد openness to experience أما openness نواردها مرة قاركود وحنكسو هذا لنا conscientiousness وحنكسو هذا لنا extroversion وعكسي كذا أنا introversion أهيد ما أنت مركو حنسوق بقوي حنسوق قاعدين على لبدي قضاء وكله قدام بيسي أما لبدي نوع شخصية وكله قدام بيسي أو هيد agreeableness إيو neuroticism of agreeableness كلمة agreeableness وحكي معناتها agreeing to something مركا كراعي تانجعل أما الله ده كرو دمردان راعي يعني وي هدي سنجاتيف الله بصيره لكن سوى حوا agreeableness هدي لا أقرب مرة والبنا شخصية وحل وتان هني قفنا أما ويكوبضان تهاي شخصية نوعاسة أما أستانت نوعاسة ويكوبضان تهاي أما ويكويرتا قفك هذا كوبضان تهاي مركا الشخصية داس أيا لونس بيا إنه ياي قفك agreeable كأمركا وحا كوبضان إنه آمنه دتك آمنه إنه وحسن فيشو إنه دعاد أسوي هاي إنه تشعلي هاي إنه دتك كلا قنعيو هدو مركا قفك كويرتا agreeable ناس كنا wuxuu ka fishaa dadka worst case scenario waxa ka fisha dadka kale inuu wax negative dadka ka fisho inuu la baratamo dadka tartamo waxa dhacda hadii sidoo rabay uu waayana in uu ka xumaado oo dhakhso xumaado qofka hadii uu marka agreeable yahay waxa uu ku fiican yahay waxa waaye waa qof dad la socodka ay u fududahay dadkuna ay fahmaan marka hadii qofka tuuxadka si xadka uga baxsan hadii ugu badan tahay dhibaatadeeda waxa weeyaan in uu naftiisa ilaawo ya noloshiisa wuxuu u nool yahay dadka kale inuu qanciyo in fikrad fiican laga qaato people pleasing syndrome baa la dhahaa waa dad qancinta cudurka ama xanuunka dad qancinta taasna wax fiican maaha dadka inaad qanacsid ilaa xad binaadamka aad ka kala ka fikirtid way fiican tahay laakiin at the end of the day hadii ay adigu kugu soo noqonayso dee wax wanaagsan maaha soo koobaya marka mawduuci insha Allah taala oo introduction weeyaan videoyada waan ka hadli doonaa iyadoo falanqaysan hadii Ilaahay yiraahdo laakiin maadaama introduction taa waan soo koobaya kan ugu dambeeyo oo neuroticism ama xasaasiyad badan xasaasi qof ah weeyaan oo dareemadiisa aan control karin qofka duu neuroticism-ka ay ku badan tahay si qiyaasan dareenkiisa uu muujiyo ama asaga isugu muujiyo ama asaga ula dhaqmo ula tacaalo ama dadka kale ugu muujiyo hadba dareemada kala duwan ama u fududa waxa ku adag in uu regulate gareeyo ama uu la tacaalo negative emotion wax dareenka xun dareemada xun sida anxiety-ga walwalka faraha badan iyo depression marka hadii ay ku yar tahay neuroticism waxa waa qof confidence haysta kalsooni haysta isku kalsoon dareemada kala duwan duruuf adag wixii soo mara mashaacir adag haday soo marto wuxuu yaqaanaa soo la dhil gareeyo xanaaqa kuma daaho hadii qof binaanka ah in xanaaqno wax dabiici ah kuma daaho ismaaciil kaambi inuu isciil kaambiyo kuma badnaa uu ka fikiro maanta dhan wixii maxaasas laga wada xusas ilaahay qofka agsigeena waxa ah qofka neurotic ah ama neuroticism ay ku badan tahay xanaaqa ayaa ku badan si fudud ayuu xanaaqa walwalsan yahay wuxuuna isu arkaa qof hadaad weydiisid of depressed ah oo nolosha ka dhacsan tahay oo aan manage karin emotions buu isu arkaa marka waxa san video ugu horeeyo oo hordhaca ahaana ugu sheegay waxa weeyaan waa the big 5 personality traits ka marka loo raacayo sida u qeexaan weeyaan laakiin Sigmund Freud oo ah dhakhtarka neerfaha oo ka soo jeedo Austria ayaa wuxuu ku sharaxay neurotic behavior ama neuroticism ay tahay khalal ku yimaada neerfaha oo aan ahayn wax personality trait aan ahayn ilaa haddana dadka adduunyada qaarkeed way isticmaalaan sharaxaada noocaas ah DSM waa lagu isticmaali jiray waageeda hore DSM waagi hore ku jiri jirtay waa dambe waa dhexe waa laga saaray oo waxa lagu daray personality trait inuu yahay laakiin adduunyada in badan wali loo arko way jirtaa inuu yahay xanuun neerfo oo dee dhalinayo xanuun maan marka Sigmund Freud aan haddaan noqon wuxuu yiri in qofka markuu u dhaqmayo si neurotic ah ma uu la imaanayo hab dhaqameed aan bulshada laga aqbali karin
wax caadi ah aan ahayn si caadi ka baxsan qofka markuu u dhaqmayo waxa ugu wacan buu yiri in uu ku maareynayo ama kula tacaalayo dareenka uu u keenayo stresska iyo sida xun u fakarayo sidoo iskaga ilaaliyo ayuu wuxuu qofku ku ugu dhaqmayaa saas neuroticism haddii aan isku soo duuduubno shantii trait ama shantii sifo shantii shakhsiyadood oo kala duwaneed waxa ugu daran waxa weeyaan neuroticism hadduu marka qofku neurotic yahay ama ay ku badan tahay sifooyinka dhinaca negative-ka oo neuroticism-ka waa waxyaabaha ugu khatarsan ayay ka mid tahay insha Allah tacaala si faahfaahsan oo soo hadli doona traityadan bi ilaahay yiraahdo intaasaan videogan kusoo gabagabeynaya insha Allah tacaala intaan video kan oo kale ah ku kulmi doono anagoo nabad ah iyo sanad cusub oo wanaagsan ayaa insha Allah idin rajeynayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh